ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ee kala booliska iyo militariga ayaa waxa uu maanta dagaal ku dhaxmaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. wariyahayaga online ayaa warkaasi Afgooye inooga soo diray. dagaalkan oo geystay khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo ciidanka booliska ee ku sugan saldhigga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. kadib markii militariga Soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen saldhigga booliska oo la sheegay in ay ku xirnaayeen laba ka tirsan militariga oo lagu soo eedeeyay falal burcadnimo kuwaas oo ciidanka boolisku ka soo xireen duleedka degmada Afgooye. taliyaha saldhigga booliska degmada Afgooye Dhamme Cabduqaadir Mursal Nuno oo Universal TV la hadlay ayaa sheegay in boolisku iska difaaceen weerarkaas khasaarna ay gaarsiiyeen raggii soo weeraray. niman burcad ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo ururka Saliid degan laba nin oo ka tirsan xalay baabuurka galay nimankii baabuurkii motorkii ka gubeen wixii saarna way ka qaateen xalay ciidamada booliska soo qabtay markii la keenay saak waxaan u talay ururkii gaari wuxuu nimankii inaan xag u gudbiyaan rabay ugu wareeji dadkii shacabka wax laga qaatay iyo nimankii maxkamadda u gudbinayna haliinkii wada hadlayno ciidankii u watay saldhigga dhexdiisa difaac ka galeen xabadina sida ugu jeedid saldhigga dhex taagan tahay annagu markii hore dagaal iyo dhibaato uma diyaar gareysneen ciidamada booliska ayaan joognay dadkii oo dacwada lagu qaadayay waxaan aragnay baakaami iyo qoryo meel walba loo walba difaacna loogu jiro markii kadib ciidankii difaaca waardiyaha hayay iyo kuwii gudaha ku jirayna way isdiyaar gareeyeen aniga tali ururka bannaanka u soo baxnay war maxay ahayd war annaga nimankan meesha ku halaan la soo deelin madax badan maanta meesha laga qaada saldhigga ka dhex baxa intaas markaa amar biyo xabad yar waa lagu bilaabay raggiin soo weerar ma ka qabateen maxaa gaarsiiseen khasaaraha wallaahi kullay saldhigga gudihiisa ilaa sooni ilaa xaraaqoona ceersanayay magaalada waa ka saarnay hal qof aa kullay ka dhaawacmay intay gaarigii ay wateen hadda kullay gacanta lagu hayo ciidamada aad taliya u tahay dhankooda ka waran waxa la soo gaaray oo khasaara ma jiraan Abdiwali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose. mahadsanid.